kulankan oo hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ay wehelinayaan madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida injineer Maxamed Shaale iyo hogaanka nabadgeliyada ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mubashir Dibad ayaa waxa ka soo qayb galay culimada iyo oday dhaqameedka deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa madashan ay culimada iyo oday dhaqameedku ka soo qayb galeen ka sheegay in qorshayaasha lagu darsaday qaabka ugu habboon ee loo wajihi karo abaaraha iyo dib u dejinta barakacayaasha lana xoojin doono ammaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu culimada iyo oday dhaqameedka ugu baaqay inay ka qayb qaataan ka hortagga isku dhacyada qabaa'ilka lagana shaqeeyo midnimada iyo isku duubnida bulshada horta adduunka waxa uu sameeyaa ilcadaha jihiyada dadka ee jidaasha uu sameeyo ee meesha barwaaqada abaar ka dhigi kara meesha abaarta barwaaqo ka dhigi kara qof isoo soo jeeda khaldi kara galbeed kala wada Ethiopia Tigray waxay leeyihiin federalismkii baa khatar ku jira sidii iyagoo shalay federalism iyo guday hal deegaan oo ka fudiyay federalism ma jiro hal deegaan oo ilaa tuulo ayna makaari u sameeyay ma jiro hal deegaan oo hantiisu madaxbaniyay ma jiro federalism shalay jiray oo maanta maqnaanaya ma jiro laakiin waxa laga yaabaa by the way arrintan ay sheegaan ee maamulada anaga sameeyay 1988 dergii wuxuu sameeyay wax la yiraahdo gobollo raas gazi la yiraahdo ismaamul wax socodka Ethiopia taariikhdeeda ay daruuri ka dhigtay oo ay la kulmeen boorta waxa iyagu keeneen ma jiro dergii waa ugu horeeyay oo gobolladii magacyo intuu bixiyay sameeyay tii oo ay dadkii ku baadaan oo ku mana sheegtaan iyagu isku talagaleen uga sheegaan 1981 bay noo yimaadeen dil iyo xabad iyo oday la dilo iyo madaxweyne sanadkii mar la bedelo baynu ka dhaxalnay federalism shalay jiray oo maanta burburaya ma jiro laakiin iyaga ilaacadoodii baa hadlay iyo dadkii la shaqeynayay kuwa kale u jawaabayeen way jiraan oo federalism kana noogu wacan ba dhibtan haysata waa in la baabiyo dastuurka waa in la bedelo waa in kala sameeyo waxaad moodaa iyaga labadii isu jawaabaysi baa inaga ku dhaxmalanay marka dhow loo hadlo aqli baan leeyahay maskax baan leeyahay inuu aan suudiin hadda ma suurtagal ba hadda in la baabiyo nidaamka qowmiyadaha ku jira ma suurtagal ba si ku suurtagalaya maanta ilaa qof wali aqli u leeyahay wuxuu garanayaa qowmiyada kale ee jira dalkii hal qowmiyad uma aha cidda ogolaanaysa si nabadgeliya xuquuqiyahan iyo waxaan haysto in hore lagu soo kordhiyo mooy cidda ogolaanaysa inuu meen ogolaanaysa Soomaalidan ma jirto marka in dadka kayaa lagu abaabulo waa in harinteeda leh oo waxaan jiro loo soo ma jiro federalism khatar ku jira haddii jiraan adduunka wadan kasta Mareykanka kuwa dadka soo galaya diidan baa jira dadkii Ingiriiska ka yimid kuwa xaq jiro oo laga saaro baa jira adduunku waa sida 10% 5% Faransiiska xisbiyo islaamka laga mamnuuc laga jiro way jirayaan codad aan caafimaad qabin oo extreme dal kasta way jirayaan meel walba laakiin dhawahan raayacaanka caadiga ah tan federalism halis ku jira ma jiro ina laakiin halis uu ku jirin aan feejignaan oo aan diyaar ahaan oo wixii waxay noo cadaadaan wax fiican oo wanaagsan weeyaan eegana mucaaradku wuxuu u fahansan yahay halkan waa ku mucaaradaya halkan waa ku wajalaya laakiin inaga qofku waa ku mucaarad ku leeyahay waa ku wajalaya been baan ka sheegaya هذا هو الرعاية وحصل قصور فرضي وعفاف الطب لكن أول حرام حرام تاني حرام كاسو جعويني أخوان قاري أخوان هيا كان أبدا حاجت تيوم بهذا الله يستان وين ماتي لكن وحنا نقولش بشارين يا هوش أسوها ماتي فهم كيم بنقول تشرين ولا فهم إيه نباتي فهم كيم بتشرين هوش صار نخون يسيو عد تنبو هوش على غير قاتك نشرت غيرات ما كانش اسمها ولا بحر سياسة معارضة وردوا طبعا ولا كلام المعارض كيسي وفصلها والدورشوي حرية حلال على القبطية والدولة كلا يوم المشي ما يسوي تانا ديار قالوية إلا سوي كستو مركز يكتو أهمية نوتال برايورتي لقى يعمل إن هذا ينوع أمني يسقطون ده ينوتال هذا نوع صحتي معارض نوعين هلا فرصة هديه الدولة على تدي شعب وكره كانوا وككسبوا دي فرصة دي شعب هيدو كل نقلها حوالين هلا تاسع injineer Maxamed Shaale Isaaq madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida ayaa dhankiisa sheegay in muhiimadda la saaray dhanka amniga xuduudaha deegaanka maantana la haysto nabad buuxda